بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داوضي halkan waa barta YouTube ee madasha wararka qodobada warkaad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose oo wada dhaqdhaqaaqyo culus waxaynu ku soo gudbin doonaa hawlgal ay sameeyeen ciidanka ilaa iyo goobaha isku fidiyeen guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee halkaas laga dareemayay ayaan idin soo gudbin doonaa xilli ciidan ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ay markaasi soo buuxdaafiyeen deegaanka Buurdhowga dhaqdhaqaaqyo halkaas ka soconayo ayaynu sidaas oo kale eegi doonaa qodobada kale ee warkaad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqonaya ammaanka deegaanka Raaskambooni iyo goobaha ku hareeraysan oo si aad ah loo adkeeyo xilli lagu wada saacadaha soo socday in halkaasi uu gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre iyo wafdi uu horkacayo waxaynu idin soo gudbin doonaa qabanqaabada dhaqdhaqaaq ee halkaasi ka soconayso sidaas oo kale qodobada warkaad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqonaya xildhibaan Jeesow oo ka hadlay xiisadda culus ee u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha isdoortay ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Jeesow muxuu ka yiri xiisadda waynu eegi doonaa oo warka ayaan ku daawan doonaa haddii Rabbi uu karaal noqdo sidaas oo kale qodobada warkaad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqonaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha isdoortay ee Jubbaland oo mar kala hadlay waxa uu ka hadlay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dhoobeysa deegaano dhowr ah ay qayb ka tahay Raaskambooni digniino kale oo culus ay Jubbaland soo saartay waynu eegi doonaa oo warka ayaad ku daawan doontaan xilli maanta mar kale ciidamo kale oo dheeraad ah la geeyay magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha daqiiqadaha kooban ee warkan aynu ku guda jirnayaan si wada jir ah u daawan doonaa balse daawada aan ku xasuusiyo haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay bartan YouTube inaad subscribe dhahdo gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan ku soo gudbino ugu horeyn warkayaga haddii aynu ku bilown deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidan ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya xilli halka lagu wado in saacadaha soo aadan uu gaaro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre iyo wafdi uu markaasi horkacayo maalmihi aynu ka soo gudubnay oo idil ay hadal haynta ugu badan waxay ahayd ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre in halkaasi uu ku wajahan yahay balse wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaa tibaaxayo in si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada Raaskambooni iyo goobaha kale ee ku hareeraysan si gaar ah labadii maalin aynu ka soo gudubnay dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah waxay geenaysay magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose qorshaha ciidamadaas ayaa ahaa in si aad ay u adkeeyaan ammaanka xilli wafuud heer sare ah oo ka socda dawladda Soomaaliya la qorsheenayo in markaasi halkaas ay gaaraan geesta kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isku fidiyo goobo kale oo dhowr ah oo ka agdhowna waaxiga markaasi magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ciidamada ayaa wada dhaqdhaqaaqyo culus oo ammaanka markaasi lagu sugayo xili shalay ilaa iyo maanta Raaskambooni la geenayo ciidamo kale oo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo ku biiraya ciidanka qaybta ka ah kuwa dawladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugan dawladda Soomaaliya ayaa si aad ah u adkeynayso ammaanka magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose waxaana la geeyay ciidamo kale oo dheeraad ah xilli halkaas ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ay horay ugu sugnaayeen geesta kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa mar kale tibaaxay in uu soconayo waqtigii muddada 15 cisho ah uu qabtay ciidanka ka tirsan dawladda Soomaaliya ee soo gaaraya magaaladaas waxaana Jubbaland ay horay u sheegtay in aysan macquul ahayn in markaasi Raaskambooni wali ciidamo dawladda Soomaaliya ka tirsan lagu soo daabulo horay amar ka soo baxay Jubbaland waxaa digniino loogu diray diyaaradaha rakaabka ee ka howlgala magaalada Raaskambooni waxaana Jubbaland amarkaasi ku sheegtay in aysan qaadin mas'uuliyadda ka dhalato inta kadib waxaa maalmaha ka galay isku socodka magaalooyinka Raaskambooni iyo sidaas oo kale caasimadda Muqdisho xilli dawladda Soomaaliya mar kale ay ku amartay diyaaradahaas in markaasi ay ka howlgalaan magaalada Raaskambooni taa oo ugu dambeyn sababtay in mar kale diyaarada markaasi rakaabka ah ay Raaskambooni
ka howlgalaan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa uu ku wajahan yahay saacadaha soo aadan magaalada Raaskambooni degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Ra'iisul Wasaaraha ayaa la qorsheynayaa in halkaasi uu gaaro iyadoo halkaasi ay gaareen xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidaas oo kale xubno ka socday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Raaskambooni oo maalmo ka hor ay la wareegeen ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa noqonaysa xarinta dowladda dhexe ay markaasi ka qorsheynayso in ay halkaasi ka bilowdaan howlgallo culus oo ka dhana kooxaha argagixisada. Sidoo qorshuhu yahay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya marka uu halkaasi gaaro waxa uu kulamo la qaadan doonaa saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, si gaar ah saraakiisha ciidanka Kumaandooska Gorgor iyo sidaas oo kale ciidanka Haramcad oo haatan halkaasi ku sugan. Safarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa imaanaya xilli ay ka sii darayso xiisadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo muddooyinkii aynu ka soo gudubnay ahayd mid ka sii daraysay. Daraawiishta Jubbaland ayaa sidaas oo kale waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus iyaga oo markaasi ciidamo kale oo dheeraada markaasi keenay deegaanka lagu magacaabo Buurkaabo, halkaa oo ciidamada ahaayeen kuwa dhanka xeebta ku yimid. Jubbaland waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ammaankeeda iyadu ay sugato, xilli sidaas oo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si carale uu kaga hadlay ciidanka ka tirsan dowladda Soomaaliya ee halkaasi lagu soo daadgureynayo. Muddooyinkii aynu ka soo gudubnay dowladda Soomaaliya ciidamo kale oo dheeraada ayay geenaysay deegaano dhowra oo markaasi ka tirsan jubbooyinka. Maamulka Jubbaland ilaa iyo haatan ma jiro wax tilaabo ah uu qaaday oo ku aadan ciidamada dheeraadka ah ee ka tirsan dowladda Soomaaliya ee halkaasi la geenayo, iyadoo ciidamo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu u soo diray halkaas ay qayb ka noqdeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan. Axmed Madoobe ayaa xilligaani waxa uu u muuqda in mid markaasi siyaasad ahaan looga adkaaday. Haddii Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre uu gaaro Raaskambooni halkaasna uu ka samaysto saldhig, waxay ka dhigan tahay in guud ahaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe looga itaal roonaaday dhanka milatariga. Axmed Madoobe ayaa wajahaya caqabado culus iyo kala shaki xooggan oo soo kala dhex galay isaga iyo ciidankiisa, tan iyo siday u bateen in ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland ay ku biiraan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Muddooyinkii dambe Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha isdoortay ee Jubbaland, ayaa xeelalkii ka qaaday saraakiishii sarsare ee ciidanka hogaaminaysay, taa oo sababtay in xubno kale oo madaxtooyada aad ugu dhowaa uu markaasi u dhiibo. Mar kale xubnihii Axmed uu magacaabay ayaa waxaa jiro kala shaki xooggan oo soo kala dhex galay. Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus ayaana soconayo. Waxaynu kuu soo gudbin doonnaa gaaritaanka Ra'iisul Wasaaraha iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka jira. Waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. Haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee bartan, aan ku xasuusiyey inaad subscribe dhahdo, gambaleelka aad furato, muuqaalkeenana laag aad saarto, qaybta hoose ee faallada commentigana oo rahdaada noogu reeb daawaday. Halkan waa madashay mahadsanid.